الحرام منعم إن الحرام بعد الممات جهنم دع طرق الغي فالدنيا فين لا يبقى إلا القيوم الحي دع طرق الغي فالدنيا فين لا يبقى إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني إن شاء الله تعالى وحن سو قارني محاضرة دي ساكا يا صدحات وحويا تاريخ التتار الشيخ مصطفى حاج إسماعيل وانا مالنتي لباد مؤتمر كيني أصلو سيدي طبنكي بشي شناد كوني أفر بقولي لبي صدنكي تاريخ ده هجرية لبي لباتنكي بشي أفراد لبا كوني كوبي طبنكي تاريخ ده ميلادية وحن إن شاء الله تعالى وذا اللي جيسن دونا محاضرة قيمك تاريخ التتار قيبتي دي أفراد يا شيخ مصطفى حاج إسماعيل فليتفضل مشكورا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد waxaan maanta ka warrami doonaa haddii alla yidhaahdo bage ama safxa ama qayb ka mid ah taariikhda muslimiinta bejajka uguba madow marka taariikhda muslimka oo dhan laga warramo bejajka ugu adag ee runtii qof muslimi inuu ka warramo ay dhibayso bage ka midaan ka warrami doonaa bejka warka aan ka sheegayo maaha litasliya iyo inaan ku madadaalano dad muslimiin oo la laayay ama la baabi'iyey ama magaalooyin muslimiin oo la dumiyey taariikhdood laakiin danta aan ka leenay waxa weeyaan lilcibra inaan isweydiinno maxaa halaaga intan leeg keenay maxaa dhibta intan leeg muslimiinta ku sababay waayo fi taariikhi alislaam waa markii koowaad ee caasimaddii muslimiinta ee khilaafa alislaamiya ka talinaysay min mashriqi ilaa maqribi ay hoos imanaysay waa markii koowaad ee taariikhda la qabsado waxaynu geli doonnaa markaa daris sheegistiisu ay naxdin badantay ka warrankiisuna uu adag yahay laakiin aan isku dayayo bal inaan soo guud maro intii aan guud mari karo waxaynu joognay dowladdii tataarka oo uu qabsaday ninuu awoowiyey jinkis khan oo inankiisii ugu yaraa uu dhalay ee tuuli oo la yidhaahdo manko khan waxaynu soo sheegnay dowladdaa uu qabsaday ninka la yidhaahdo manko khan oo nin hooyadii masiixiya ay tahay saddex nin oo ay walaalayiin inuu kaalmaystay oo mid uu caasimadoodii ku reebay karakrum ama qaraqrum la odhan jiray midna uu eeshiyada fog u dhiibtay siiba china iyo wixii ka agdhodhow iyo kuuriya qabilay nin la yidhaahdo walaalkiisii ugu yaraana waxaa loo xil saaray oo nin dagaalyahana ahaa caasimadda muslimiinta ama dowladdii dunida ugu xoogga badnayd ama ugu weyneyd ee waagaa jirtay siduu dhulka u dhigi lahaa ninkaasi waxaa la yidhaahdaa luqada af ingiriisiga halaagu ayay ku sheegaan taariikhyahanada muslimiintuna hoolaako bay qoraan halaagu ama hoolaako kaa tidhaahdaba waa saddexda nina walaalaha ninkii ugu yaraa waa nin runtii ka talinayay markaa dawla alkhawaarzimiya dhulkii ay ka talin jirtay siiba bershiya ama dhulkii iiraan
la yidhaahdo iyo waxa ku ag wareegsan weliba xaaskiisuna waa amiirad ama khaatuun waataynu nidhi khaankana raggaa la yidhaha khaatuunkana dumarkaa la yidhaha waa amiirad tagas khaatuun la yidhaahdo oo iyana masiixiyada marka boqorku hooyadiibaa masiixiyada ninka kanna xaaskiisa ayaa masiixiya waxaad dareemaysaa markaa masiixiyadda inay xoog badan ku yeelatay dowladdii tataarka iyo dhankeeda ninka kani siduu khilaafada islaamiga u dumiyo isagoo ah nin qalbi adag oo aan naxariis aqoon haddana wuxuu ahaa nin deggan oo tallaabadiisa aada uga fiirsada oo wuxuu u baahnaayoo dhan isku dayay inuu muddo sameeyo weerarun aan iska qaadin laakiin tijaabiyey inuu tamhiid hordhac tiro badan leh uu arrintaa u sameeyo hordhacaasi wuxuu ku qaatay muddo 5 sannadood uu ka shaqaynayay 649 ayaa la soo diray ilaa 654 hijiriyada 5 sannadood wuxuu waday diyaar garow isagoo beershiya jooga oo ciraaq aanay waxba u jirin ayuu haddana diyaar garow waday waxay dhahdaan nimanka taariikhda qoraa diyaar garow buu sameeyay 4 meelood ku saabsan kow wuxuu diyaar garow ka sameeyay bay dhahdeen infrastructure-ka ama albinya taxtiya oo ah logistics-ka waxaana yidhaahdaan sidii uu u heli lahaa ciidamada shidaalka wixii uu u baahan yahay oo dhan waddadii ay u soo mari lahaayeen dabeetana wuxuu sameeyey waddooyin isku xidha min ciraaq ilaa China waddooyin waaweyn oo isku xidha ayuu samaystay waddooyinkaasi uu samaystay oo dhul buuralaya mara oo Tajikistan iyo Afghanistan iyo Faris iyo dhulkaasi oo dhan mara ayuu samaystay waddooyinka uu sameeyey webiyaa dhulkaa mara webiyadaasi wuxuu u samaystay bridge ama jisr dhul ciidamada iyo qalabka iyo wuxuu u baahan yahay oo dhami ay ka tallaabi karaan oo waaweyn buu ku sameeyey wuxuu kaloo u dhigay ciidamo ilaaliya waddadaasi iyo meelahaasi ay marayaan logistics-kiisa oo dhami muwaasalaadkiisa yacni ciidanka taakulaymihiisa oo dhami dhulka ay marayaan ciddii ilaalin lahayd buu sameeyey wuxuu samaystay bay yidhaahdaan qalab wax lagu xambaaro oo xayawaan ay jiidaan oo waaweyn oo uu ku soo raray xusuunta ama qalcadaha dhufaysyadan waaweyn la galo ee dhagaxa ka samaysan ee adag qalab Chinese-ku ay samayn jireen iyo dhulkaasi oo lagu garaaco oo markaasi lagu dumiyo ayuu soo xambaaray oo soo qaaday oo China ka keenay ilaa iyo Baghdad duleedadeeda uu keenayay wuxuu sameeyey dhulka waddooyinkii uu samaystay inta u dhow ee agagaarkeeda wuxuu ka ilaaliyey xoolo dhaqdaan iyo xoolo duurjooga midnaba inuu daaqo wuxuu ku talagalay fardahoodu inaanay u baahanin in calaf loo qaado markaa seeru u sameeyey fardahan militarigu wato dee raashin bay u baahan yihiin si aan raashinkooda ugu cuslaanin waddooyinka isku xidha min China ilaa Baghdad ee ciidamadiisu ay marayaan agagaarkeeda seeru ka dhigay seeruhu waa dhulkan laga ilaaliyo xoolaha iyo wuxuuba inay galaan ee la ilaaliyo dhul lama degaanu ka samaystay oo ugu talagalay inaanay calaf waxay cunaan u baahan fardaha ciidamadiisu wataan waxaynu odhan karnaa wixii uu u baahnaa ee isku xidhka caasimadiisa iyo meeshuu ka yimi iyo dhulkuu degay wuu wakaajiyey kaasi waa qaybta koowaad ee diyaar garowga qaybta labaad ee diyaar garowga ee ninkani uu bilaabay waxa weeyaan diyaar garow aan lagu aqoonin dawladdii tataarka hore dawladda tataarka hore waxa lagu yaqaanay inay dawladnimadooda u ictiraafsay inay tahay sayidatul caalam hal qura inuu dunida nin quri ka taliyo wixii kaloo dhamina hoggaansi inay la yimaadaan luqada diblomaasiyadana ma yaqoonin waayo niman reer baadiyaa baa ahayn reer miyigu inta badan afkan nifaaq ee la isku soo dhadhaweeyo shaqadooda kuma jirto waa luqa waadixa oo ama la istilo ama la kala nabad galo laakiin ninkani wuxuu bartay luqati diblomaasiya iyo taxaalufaad siyaasiya gaashaanbuur inuu sameeyo isagoo dawladdii u xoog badnayda ayuu gaashaanbuur sameeyey gaashaanbuurta uu sameeyey
waxaa la waday xaaqaankiisii weynaa ee Manco Khan waayo Manco Khan bay yidhaahdaan markii koowaad 651kiiba wuxuu aqbalay safaara diblomaasiyiin ka socda reer galbeedku inay tegi karaan qoran oo wada xaajood lala sameeyo diblomaasiyiintan waxaa soo diray Louis XVI oo dagaalkii koowaad ku jabay intaan la qabanin boqorkii Faransiiska oo ah Louis kii sagaalaad la odhan jiray 648 markuu jabay mar labaad muxaawalo u wado 3 sano kadib ayuu u dirtay safaarad uu la hadlayo weli nimanka Tataarka muslimka inay wada weerari karaan safaaradda tan waxaa hogaaminayay raahib caan ah oo taariikhyahanada wax qora ka mid ah waliba nimanka Tataarka wax ka qoray ka mid ah oo la yidhaahdo William Robrick oo Dominikiya ayaa loo diray inuu noqdo safaarad iyaga iyo nimankan dhexdhexaadisa laakiin maadaama weli caqliyadii ahayd al-qutb al-wahiid nin quri you will be either with us or with the others caqliyadda abay haysteen caqliyadii maadaama uu rumaysnaa Manco Khan muu aqbalin qaabkii ay ula hadleen safiiradan u yimi waayo isagu wuxuu u yaqaano quri sidiiqu waa cidda taabica u ah saaxiib waxay yihiin ciddii dowladdiisa soo gashay raacda haddaad dowladda soo geli weydo cadowgaad ka mid tahay saasoo quri u yaqaano laakiin boqorradii reer galbeedna ee soo hadhay tabiciinnimadaa may aqbalin inay raacaanta waa diideen laakiin waxaa jira boqorro yaryar oo kristan oo tiro badan leh maadaama kuwii waaweynaaye yurubta galbeed ay diideen boqorro yaryar ayaa jiray maalan boqorkii haythamkii koowaad la odhan jiray haythamka koowaad waa boqorkii armeniya ka talinayay cagihiisaabuu ku safray ilaa iyo uu tegey Qaraqorum Mongolia caasimaddii Tataarka ilaa uu tegey isagoo markaasi raba inuu heshiis la galo maadaama boqorkan isagoo lugaynayaba uu yimi si weyn buu soo dhaweeyay Manco Khan waxaa loo sameeyey soo dhaweyn weyn isna wuxuu aqbalay bunuudi tabaciya inuu dowladdan u hoggaansamo uu raacayo ayuu aqbalay oo uu ka mid yahay racaaya ama dadka dowladda taageersan ee raacsiisan inuu ka mid yahay haythamka koowaad wuxuu Manco Khan u oggolaaday kow boqorka iyo wuxuu hantileeya gaarka ah inuu nabadgelinayo wuxuu kaloo u soo oggolaaday kanaa'ista iyo adiiraadku yacni meelaha ay ku caabudaan diintooda masiixiyiintu inaan wax daraa'iba taxation inaan laga qaadin ee tagaska free ay ka noqdaan wuxuu kaloo u soo oggolaaday wixii dhul ahaa ama magaalooyin ahaa ay ka qaadeen salaajiqadu waa muslimiintii turkiga ahayd ay isdili jireen wixii dhul ay ka qabsadeenna in loo celiyo oo iyaga dib loogu soo wado waxa qudheeb uu oggolaadee boosina waxa weeyaan la taliyaashaydana ka mid baad noqonaysaa buu leeyahay arrimaha gobollada markaan wax rabo inaan ka qabto dadka aan kala tashan doonana ka mid baa tahay buu yidhi fii shu'uuni garbi aasiya fii muqaabili maada intaa marka loo oggolaaday maxaa isagana laga rabaa waxaa laga rabaa armeniyiintu in badan bay muslimiinta isdilayeen khibrad fiican bay u leeyihiin dhulka kan deegaankan muslimka dhaqamadooda waxaan oo dhan inay ka bixiyaan sida duwalkan waaweyn maraykanku markuu duulayay ingiriisku aan naf badan lahayn buu hoosta ku watay si laakiin khibrad buu leeyahay caalamulislaami waa expert buu ku yahay khibraadkiisa looga faa'iidaysto waxa uu sameeyey dhulkiisa ciidamadiisu inay free u noqdaan baabil mucaamalaat dowladda Tataarka iyo masiixiyiinta dhex maraya inuu oggolaado ay soo socdaan intaa kadib waxaa bilaabmay masiixiyiintii shaam deganaa iyo meelahaana inuu ninkani wada hadal la sameeyo oo la soo dhoweyn karo armeniya inay la taxalufto Tataarku xoog weyn ma ahayn laakiin waa caamil nafsi ah gaashaanbuur maraykanku markuu duulayo 3 dowladood oo yaryar buu ka haystaa baahi uma qabo militarily laakiin waxay ka mid tahay bihaylihi wa hayliyaamihi inaad
dunidoo dhan baa ku soo weerartay marka lagu yidhaahdo marka lagu yidhaha hal dawlad baa ku weerartay macno kale fog bay samaynaysaa idan xilfi iyo gaashaanbuur buu bilaabay inuu sameeyo maxaa ka mid ah dawladda armeniya ciidamadeeda meelo yaroo khatar ah oo ku tala galay inaan isaga dad badani kaga dhimanna waa lagu buuxinayaa askar inuu keeno wuxuu bilaabay markaasi boqorro yaryaroo tiro badan oo muslimiin inay dawladda weyn iyana inay xidhiidh la wada sameeyaan ilaa cabsaa soo korodhay oo iyana la yidhaahdo waa dawlad sidiiqa ama xilfi wadaag ama xilfi istaraatiiji aan wada leenahay waxba ku kordhin maayo imise dawladooda yaryar baa maraykanka la leh xilfi istaraatiiji iyo xilfi kada waxba kuma kordhinayaan laakiin waa nooc min atabiciya inay aqbalaan diblomaasiyaddaasaa bilaabantay qoladaa yarna masaakiintaana fakhaamatu ra'iiskiisaasi inuu qaato iyo boqor hebel manko khan wuxuu kaloo bilaabay masiixiyiintii caalamulislaami ku dhex noolaa inuu xidhiidh la samayn karo ilaa xad uu xidhiidh la sameeyey bay taarikhyahanadu yidhaahdaan makayka batriiqii la odhan jiray oo baqdaad kristanka jooga batriiqay lahaayeen makika baa la odhan jiray makika wuxuu ku xidhmay oo xidhiidh la sameeyey baa la yidhahaa boqortooyadii manko khan uu waday manko khan uu sii ballaadhiyey georgiya boqortooyadeeda iyana xidhiidh buu la sameeyey waxaa sii ballaadhay xidhiidhkaasi dabeetana waxaa bilaabmayba kuwa yaryaroo muslimiin oo aad u tiro badan inay usoo kala dheereeyaan ilaa xad aynu odhan karno waxay gaadhay halkuu ilaahay qur-aanka ku lahaa fatara aladiina fii quluubihim marad يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين إلهي وحول كوا قلبك كبك وحضر كيسا يجا أوكلا ديرين يجا على ذي الحديد كوده أوله المشكلة ومضى قبصان لها يبقى نكوبة بادرين أيها وهو شغيريا لكن دانتو عيتهاي قلوبتو هذا مرض وكتشرابي ووعك على عراريا waxaa bilaabmay boqorro yararoo badanoo muslimiin inay ku xidhmaan dawladdii mongolianiska maxaa ka mid ah badruddiin lu'lu waa boqorkii muusul meesha la yidhahdo ciraaq ka tirsan ninkii ka talinayey hoolaaku u tegey xidhiidh buu la sameeyey waxaa ka mid ah oo iyana yimi salaajiqada ama atraagta dadkii ahaa laba boqoroo isdilayay baa jiray mid waliba wuxuu is yidhi ka kale yuu kaa badin inay dawladda weyn adigu xilfi wadaag la samee dabeetana labadiiba mid isagu waxaabuu ka qayb galay oo kiitaa markii la caleema saarayey dhowrkii kuna tegey buu ku jiray kii kalena waa ka daba tegey labaduba xidhiidh bay la sameeyeen midi waa ruknadiin waa qalaj arsanaan araabic dawla salaajiqadii arsanaan araabic wakhtigii dawladdii uu ka talin jiray weeyaan waa ruknadiin ninkii la baxay ka kalena kakaws ayaa la yidhaahdaa cizudiin bay ula baxay cizudiin kakaws baa la yidhaahaa labadaa boqor ee salaajiqadayhina iyana way tageen xilfi wadaag bay la soo sameeyeen labada nin waxay ka taliyaan markaa waqooyiga ciraaq iyo turkiga intaas bay ka taliyaan iyana xilfi wadaag bay la soo sameeyeen arrintu intaasoo qura kuma sinna dawladda weyn waa laga wada cabsanayaa annaasir yuusuf waa suuriya xalab iyo dimashq boqorkii ka talinayey isna xagga dambuu ka soo wareegay dawladdii manko khan ee tataarka ayuu isna xilfi wadaag la soo yeeshay bale si uu ugu caddeeyo inuu mar kasta uu heegan yahay oo arrimaha kan aqbalayo inankiisii la yidhaahdo alcasiiz ciidan baaba la soo siiyo ciidamadu wato hoolaako hurin ka mida la yidhi hoggaami waa boqor muslima inankii ayaa wuxuu hoggaaminayaa ciidamada hoolaako hurin ka mida ayaa la yidhi hoggaami waxaa kaloo yimi suuriya xums alashraf ilayubi oo isna xumus jooga si uu dawladda tan xilfi wadaag ula samaysto nimankan meesha maraya aan tirinaya dambe waxay ku abtirsadaan salaaxaddiin ilayubi waa dhashii ama kuwa awowyada u ahaa salaaxaddiin ilayubi weeyaan qolada tan tataarka xaggiisa usoo cararaysa waxaa ka mid a dadka xilfi wadaagga waaweyn la samaynayey dee nimankii hoggaamiyaashaba ka ahaa provinceski muxaafadaadkii muslimiinta qaybo ka mida maalan turkistan iyo maa waraa'i nahar oo dhan nin mascuud yalvash la yidhaahda haystay ninkaasina ciidan buu soo ururiyey waa maamulo ka tirsan
waa qoladii la socotay oo kale uun maraykanka markii uu ciraaq qabsanayay ee meelaha uu dhiibtay waa maamule meeshaasi maamula oo uu dhiibteen tataarku isna ciidamo badan buu soo qoray oo muslimiina oo jaanibka tataarka ka dagaalgelaya waxaa ka mid ah dadka uu xidhiidhka la soo sameeyeen basaasiintii iyo wixii ilaa xad baqdaad bay soo galeen ra-iisul wasaarihii khilaafada islaamiga ah baa xidhiidh lala sameeyey waa kuma waa mu'ayidiin alcalqami mu'ayidiin alcalqami ashiici waa meelaha bay yidhaahdaan boqorka kan meesha qabsaday siyaasad darradiisa uu gafka weyn kaga dhacay 42kiiba wuxuu saaray madaxnimo ra-iisul wasaarihiisii hore markuu dhintay ra-iisul wasaare shiiciyuu qaatay oo weliba mutatarrif ah ayuu qaatay bay yidhaahdaan ninka kani oo shiiciga ah isla sanadka baqdaad la qabsan doono sanadkii ka horreeyey waa sanadkii ay dhacday fitnadii baan rajaynayaa baqdaad ka dhacday ee shiicada iyo muslimku islaynayeen dowla alcabaasiya sideedaba iyo calawiyiintuna col bay ahaayeen oo intaasoo thawro oo calawiyiina bay 500 sannadood ay xukumayeen ay laayeen saa daraaddeed sidoodaba iskumay fiicnayn iyagoo isku qabiil oo isku jiliba oo cali ibn abi aalib iyo cabbaas ay ku kala abtirsanayaan reer binu cabdilmuطalib wuxuuba isku yihiin haddana dowlad ahaan iskumay fiicnayn markaa shiicadu aad bay uga cabanaysay dowladdan cabbaasiyiinta si kastaba ha noqotee ra-iisul wasaarihiina wuxuu xidhiidh hoose la yeeshay hooleko intaa waxaa sii raaca oo hooleko waxaa la weydiinayaa inuu fudaydiyo ciidanka tataarku siday u soo geli doonaan meesha waxaana loo ballan qaaday boqorka marka la rido majliska ka talin doono guddiga loo dhiibi doono baqdaad ee ka talin doonta in madax looga dhigayo adigu booskaagaba waayimaysid baa la yidhi majlis alxukm majlis la yidhahday tataarku samaynayeen markii baqdaad ay rideen dabeetana majliskaasa adiga madax lagaaga dhigayaabaa ballankaasaa la siiyey khulaasadu waxa weeyaan ciidamadii tataarku intaanay dagaalka bilaabin waxay sameeyeen xilfi wadaag tiro badan oo ay ka soo samaysteen xukaamtii muslimiinta iyo kuwii kiristankaba ee agagaarka joogay oo markaasi akraad u badnaa iyo shiico dowla alcabaasiya markii khawaarzimiyiinta la liqayay dee umay gargaarin bal ee tataarkay taageeraysa iyaga marka la liqayo waa aljazaa'u min jinsi alcamal de maadaama adba kuwii hore aada lugta u qabatay adna cidi ku difaaci mayse waxay noqotay adna qaar lugta ku qabtoon in lagugu itixaamo isba dowla alkhawaarzimiya iyo muslimiintii milyanka loo dilaya aan ka warramayay ama nishabuur ama marwa ama samarqand ama bukhaara markii la tirtirayay umay gargaarin taasi waxay sababtay dadku siduu u kala furfuraa in iyagana markooda dad tiro badani u ku soo baxaan boqorradii karamaan ka talinayey oo barq ninkii la odhan jiray oo ah khiyaathudiin ayaa meesha madax uga dhigtay jalaaluddiin kii walaalkii weeyaan waa boqorkii khawaarzim ee moxamed ayaa dhalay labada walaalii markay isdilayeen mid baa meesha usii dhiibtay kii meesha usii dhiibtaa u yimi kii intuu ikhtiyaal ku sameeyo madaxa ka gooyey ayuu u geeyey madaxii khiyaathudiin waxaa loo diray maxay qaraaqarun baa loo diray iyadoo lagu bishaaraynayay inan kale oo uu boqorkii khawaarzim uu dhalay inuu ka soo takhallusay isna meeshaa la yidhaahayso way soo socotay qutbadiin mid la yidhaahdo meesha joogay iyo nin kale oo ku loolamayo abibakar lo odhan jiray labadooduba ciidamo iyana usoo direen holaako ay leeyihiin waa kula xilfi wadaagta ay ku biirayaan marka aan soo duuduubo qodobka koowaad waxa weeyaan waddadii wuu hagaajistay iyo askartiisi iyo ciidamadu meeshay mari lahaayeen qodobka labaadna waxa weeyaan gaashaanbuur ballaadhan bay samaysteen si khilaaf alcabaasiya loogu duulo qodobka saddexaad waxay bilaabeen xarbi dacaayiya dunida waxaa la ysku haystaa dagaalka dacaayaddu dadka ciidamada wuu niyad jabiyaa dadka wuu dhibaa maraykanku dunida wuxuu u sheegay cirka waxaa ugu maqanaya sida xabadda liin ee dhulka taalla inay arkayaan hadda dad waaweyn ay daydayayaanna weli way arki la'yihin laakiin waxaa laynaga dhaadhiciyay teknolojiyadu xadkay gaadhay
midhliina haddii dhulka waxay yidhaahdaan garankaad xidhantay haddii sida kale loo rogo wuu akhriyi karaan waxa meesha kaga qoran waa dacaayaadku markaa dadka way jebiyaan sidoo kale tataarku waxay faafsadeen dacaayo aad u cajiib ah dacaayadaasi caamadii iyo dadka qalbiyadooda way gelgeshay si dacaayaadkaas ay u faafi karaan kow dadka badh malaa weylaadkii iyo balaayooyinkii u dhigay Jenkins Khan dee 30 sano hadda ka soo wareegay Jenkins Khan 617 bay ahayd markii uu weylaadka ugu waaweyn dhigayay iminkana waa dhowr iyo 50kii 30 sano ka soo wareegay dadkan cusub malaa aad u garan maayaan Jenkins Khan sheeko ku yahay si wax loo xasuusiyo ciidamo yar yar bay direen oo wax laaya oo wax gumaada oo dadka baqa galiya oo ruubiga dib u abuura waxay kaloo sameeyeen waqooyiga Ciraaq oo dhan meelo ka mid ah duulimaadyo ku qaadeen Saruuj Sanjar meelahaasi oo dhan waxay dhaceen qaafilaad ay lahaayeen dawlad Cabbaasiya dadkii muslimiinta ahaa oo waxay dhahay hal qaafilo qura ay 600 oo kun oo diinaar ka dhaceen waa tajmiid al-amwaalkan oo kale adigu wixii xoolo lala wareegi karayay waa lala sii wareegay waxay samaysteen dad gabyaaya kuwa sheeka abuurayaala suugaan yahano waqtiga dacalaamka ugu badan ee gabayga iyo wixii la mid ah waxaas iyo tirinaya amaanta nimankan tataarka iyo weeraryahannimadooda dacaayadka la faafin jiray mesela kutubu taariikh ay qorto waxa ka mid ah tataarka warkooda lama helo qofna warkiisa ma waayaan yani waa CIA bay leeyihiin iyo FBI khatara oo adigu meesha istaagtaba way ka war hayaan laakiin iyaga akhbaartooda lama gaari karo dacaayadka la faafin jiray waxa ka mid ah tataarku hadday magaalo soo galaan wuxuu bay galaan iyadoo laba ogeyn sida ay waxooda u sirayn karaan tataarka dacaayadka la faafinay waxa ka mid ah dumarkoodu sida ragga u dagaalamaan nin iyo naagii ku hela waa isku mid askarta waa ka takhalusaysa dacaayadka la faafiyay waxa ka mid ah tataarku wax nool oo ay helaan way cunaan hilibka wax ka xaraansanay ma jiraan xataa dadkay cunaan baa la yiri caalamka islaamiga oo dhan waa qurbanaya niman aan waxba reebay wuxuu arkaba qof liqaya oo noola ah waa khatar waa wax laga bixi karo waxa la gaarsiiyay inay yiraahdaan tataarku maadaama wax kasta cunaya ninka tataarka ahi saadba uma baahna wuu iska soconaya bahal iyo dad wuxuu helaba maadaama uu cunayo ma qaataan saadka baa la yiri iyagu waa nimankaasi socda dacaayadu waxay gaadhay xad oo aad u bajiyaan dadka waraaqu qorayay waraaqahay u qorayeen boqorrada way gilgishay mesela balaan hal warqadaydin akhriyo oo ka timi boqortooyadii tataarka iyo hoolaakiya kooxdii oo ku socota boqor yaro ka mid ah boqorradii muslimiinta wuxuu leeyahay nahnu junuudullah bina yantaqim mimman ata wa tajabbara wa taqa wa takabbar wa bi amri llahi ma tamar nahnu qad ahlakna albilad wa abadna alibad wa qatalna an-nisaa wal awlad فيا أيها الباقون أنتم بمن مضى لاحقون يا أيها الغافلون أنتم إليهم تساقون مقصدنا الانتقام وملكنا لا يرام ونزيلنا لا يضام وعدلنا في ملكنا قد اشتهر ومن سيوفنا أين المفر دمرنا البلاد وأيتمنا الأولاد وأهلكنا العباد وأذقناهم العذاب وجعلنا عظيمهم صغيرا وأميرهم أصيرا تحسبون أنكم منا ناجون أو متخلصون وعن قليل تعلمون على ما تقدمون وقد أعذر من أنذر أوراق صغري سجعي عربادة وقت جاء السعودي أيان من أدبيها لنا وقرين وحلي أنه أسكرتي إلهي بانوني وحي كبرئ قوقة إيه سوينية إيه إلهي أمر كيس قادم وايا أي أنك إلهي نقول عرب قوي أبو كلي أسكر إلهي بانو نوحي نوع عاصة وقمادنا أنك بولي يدول كوانو هلاقني وأضوميه واتر ترني ودمر يعرورتي بواليني ورهوي كوا هرايو كوي دنتاك دبت جيسان وركوي نور موجاهي حق عسال يدين سي وضاه دنت يدوا أرجوسي بغرت يدوا مدان لسوعلين cadaaladayadu waa mid faaftay seefaha yaga xagee laga geli dhulka waa tirtirnay
carruurta waa agoomaynay addoomaha waa halaagnay cadaabka dadka waa dhadhansiinay kuwooda waaweyn yar yar baanu ka dhignay boqorradoodana maxaabiis baanu ka dhignaa ma waxaa u malaynaysaan inaad naga baxsan doontaan goor dhow ayay idin garan doontaan waxa aad la kulmi doontaan war ninkuu digay kuma dilin buu ugu gebagabeeyey waa waraaqdu u diray boqorradii muslimiinta ayaa meelaha waraaqda loo dirayaa qaabkaasay u qoran tahay dee boqorraa walba iska baqayay oo gaashaanbuur dhimay isugu tagtay oo waraaqaha loo diray ay kuwan yihiin waxay keentay in aada loo kurbado markaynu saddexdaa qaybood ka nimaadno ee ah taakulayntiisi iyo zaadkiisii siduu u dhowrtay iyo waddooyinka u samaystay xilfi wadaag siduu u samaystay iyo gaashaanbuurta uu dhistay iyo iclaamka iyo hanjabaadda uu samaystay qaybta afraad waxa weeyaan militarily siduu u diyaar garoobay militarily diyaar garowgiisa laba dhan buu ka sameeyey dhan waxa weeyaan ciidanka muslimiinta in la daciifiyo dhanna waa ciidankiisa weerarka galaya siduu u xoojiyey ciidanka muslimiinta taarikhyahanadu waxay sheegayaan ninkii ra-iisul wasaaraha ka ahaa meesha ee mu'ayiduddiin alcalqami wuxuu heshiis kula galay holaako inuu boqorkan muslimka oo aynu nidhi waa nin siyaasadda haafilka ah waa inagii soo sheegnay sidiisa kale waa iska wadaad miskiin ah oo caqiidadiisu suubantay sida la sheegay laakiin war badan nin og maaha marka baabkan la eego kaas miskiinka oo aad arkayso dee siyaasaddiisu halkay joogto waaxid shiici aan la madbaaba ahayn inuu kalsoonidii waddanka oo dhan siiyey ayuu wuxuu ku qanciyey wakhtiga khatartaa lagu jiraa waxa lagu qanciyey ninkan odayga ah ee madaxda ah ciidamada miisaaniyaddooda in la dhimo oo ciidamadan tirada badan leh kharash badan baynu u hayaanay in la yareeyo oo tasalluxan tirada badan leh inaynu iska dayno iyo hubkan iyo waxaanaynu samaysanayno oo dhan inaynu iska dayno waxaynu u baahanay buu leeyay wax soo saarkeennu si uu u bato ciidamada badh inaynu qaybta beeraha iyo sinaacada iyo wax soo saarkan kale ee waddanka inaynu ciidamada badh u wareejinno isla markaa dunidu ay u aragto inaynu nahay dad nabadgelyo oo aan dagaallo iyo rabshad iyagu doonaynin si ay u muuqato waxay idhahdaan boqorkii fikraddaa wuu la dhacayba in ciidamadan la yareeyo awowgii markuu meesha joogay 100,000 oo askari buu haystay oo tababaran kanina bay yidhaahdeen ciidamadii wuxuu isku soo ururiyey 10,000 9,000 baa la sii daayay weliba waxay leeyihiin 10,000 waxay noqdeen ciidan iska daciifa oo hubkoodu gaboobay oo faqri uu ku dhacay oo qaarkood meelaha ay ka dadka wax ka weydiistaan yacni askari moralku ka dhinto xataa wuxuu cuni lahaa aan saani u haysanin ibnu kathiir markuu masalada tan ka warramayo wuxuu leeyahay eedoo dhan waxaa iska leh ra-iisul wasaarihii waddanka laakiin doctor raaqib asarjani isagoo tacliiqinayo wuxuu leeyahay ibnu kathiir lama qabe waddanka ninka u madaxda kan haba fikradda ha qaba buu yidhi laakiin kan laga dhaadhiciyey isba ma dhaamin buu leeyahy ee ummadda mas-uulka ka ahaa ee fikradda tan qaatay ma ahayn buu leeyahy fikrad saxa iyada oo ciidankii muslimiinta ee khilaafadu uu sidaa u eg yahay ciidankii tataarkuna uu xilfi wadaaggaa tirada badan la soo samaystay ayaa haddana خلافة العباسية وقلب العالم الإسلامي ودولة 500 سنوات سoo jirtay waa dawlad dunidu ay ku xisaabtanto waa magaalada dunida ugu dad badan leh 3 milyan oo qof baa Baghdad degan waa magaalada dunida ugu cilmi badan leh ugu maktabada badan leh ugu aqoon yahan badan ugu farsamo yaqaan badan ugu technology sareysa mahma aw sida yeelay haddana ma aha meel lagu dhiiran karo waana qalbi العالم الإسلامي idan ku xisaabtan military aad u tiro badan bay leedahay sida awgeed ayuu wuxuu dalbaday holaako ciidamadiisan beershiya degan oo quri inaanay dagaalka gelin ee in la siiyo taakulayn wax allaaliya wuxuu u baahan yahay waxa amar la soo siiyey kow ciidamadii beershiya iyo adarabijaan iyo intaasi isagu degan yahay joogay oo dhan inay qiyaadatu holaako galaan oo dagaalka xagga ka galaan waxa kaloo la faray
bato ibnu jaajo ninkii aynu lahayn ee wawowga u ahaa jinkis khan oo dowlad gaara iyagu samaystay alqabiila dahabiya golden hord meel qabiiladii la baxday waa foolgaha webigan volga la yidhaahdo iyo agaarkeeda ayay dowlad nowcan ma dowladda weyn hoos timaada laakiin xukunkeeda idaarigii uu mustaqil yahay ayuu bato xukuma bato baa waxaa la yidhi ciidan waa inaad adna dirtaa oo meeshaasi geysaa bato wuxuu soo diray isagana ciidan 3 inan oo walaalkii dhalay ay hogaaminayaan oo tiro badan ayuu yidhi idinkuna dagaalka ka qayb gala waxaa kaloo la yidhi meesha waa khilaaf alislaamiya aynu duulimaadka kunay kuma filla ciidankii yurub loogu talagalay oo turkiga xaggiisa sare jooga oo dagaalyahan bijo la yidhaahdo aynu hore uga sheekaynay uu hogaaminayo isna waxaa la yidhi ciidanka oo dhan dib u celi dhammaantaa ciidankii yurub oo dhan dib u qaad khilaaf alislaamiya baqdaad dib u gal baa la yidhi isagana bijo in 1 kilomitir ah buu baqdaad u jira amarna waxa lagu siiyay inuu dib u noqdo 1,000 kilomitirna muslim baa degan 500 kilomitir meelahaasi oo dhulka turkiga ah 500 kilomitir oo ciraaq iyo dusheeda dhammaanteed waa dowladihii yaryaraay ee muslimiinta waa salaajiqadii aynu sheegaynay meeshay ka talinayeen shaamiyiintu qaybtay ka talinayeen ee ayuubiyiinta ahaa muusa shan aynu lahayn badrudiin baa haystay dhammaanteed waa duwal yaryar oo islaamiya laakiin waxaa la faray intaasoo dhan inuu ka tallaabo oo uu tago meesha la yidhaahdo baqdaad inuu ka dagaal galo waxaa kaloo ciidan laga soo ururiyey boqorkii armeniya hetham isna wuxuu keenay ciidan ka socda waddankiisii boqortooyadii yarayd ee georgia kurj iyana xilfi wadaagga la gashay iyana horin kaley soo dirto ciidana oo dagaalka ka qayb gasha maadaama meeshu ay khilaafadii to ay khatar tahay dowladdii weynayd ee jayne ka talinaysay dib baa loogu noqday waxaa la yidhi ciidan si gaara u tababaran baa loo baahan yahay 1,000 nin oo gantaallada dabka sida tuuri yaqaana baaladan wax lagu gubo oo jayna ah ayaa iyana jayna laga soo diray oo iyana qalacaadka nimanka dabka xagga sare kaga guba ah ayaa jaynana laga soo diray intaasoo ciidana ayaa la isugu keenay dabeetana 3 qaadadii macruufka ahayda ayaa la yidhi baa hogaaminaysaan dhammaantiin waxaa hoos tegaysaan baa la yidhi holeko 3 nin oo qaadadii macruufka ahaana wuu wataa waa holeko oo ciidanka qayb wata katabqa waa oo nin ka mid ah ciidamadii tataarka weliba geesiyadooda waaweyn isla markaana isagu masiixi buu ahaa katabqa taariikhda haddaad dib u daraasaysaan waa qitas ninkay isheleen tataarka waaga la soo jebin doono caynu jaaluut macrakada la yidhaahdo goobahaasi xagga qoladan gaalada ninkii hogaaminaya weeyaan katabqahani marka waa nin masiixiya isla markaana tataara hogaamiyaashooda waaweyn ka mid ah katabqana qayb baa loo dhiibay qaybta saddexaadna waxaa wata bijo oo ah qaa'idkii yurub inuu furto lagu talagalay 3 qaa'ide waaweyn baa wata ciidanka tataarka mushaarikiintii yaryaraana waa dhex socdaan oo uu ka mid yahay de annaasir yuusuf amiiru dimashq isagu inankiisii alcasiiz iyo ciidan watuu soo diray oo meesha ka qayb galay boqorkii muusal badrudiin lu'lu firqa koox iyana taageerto oo militariya buu soo diray maxaa la yidhaahdaa karmaankii joogay qutbudiin waxoogaa kooxuu soo diray inankii uu dhalay sacd ibnu abibakar oo isna meesha joogay waa nin ka mida karmaan kuwii isku hayay boqorrada yaraa isna ciidan buu soo diray dawaa'if yaryar oo muslimiin iyo kristan iyo ciidamo yaryar oo kaloo tiro badanina meeshay marayaan waxaasoo ciidanaa la ysugu keenay muslimiintii tirada badnayd ee turkmenistan iyo turkistan iyo dhulkaa deganaydna ciidamada laga keenay markaa meesha tan caalamka oo dhan baa maraya askar muslimiina guutooyin gobollo islaamiya ka socda guutooyin gobollo kristana ka socda iyo 3 guuto oo waaweyn ama 3 ciidan oo waaweyn oo ka socda nimankii la odhan jiray tataarka
ciidanka intaa leeg baa isugu yimi waxaa jirta markuu ciidankii soo dhaqaajiyey ayuu Holaco mas'alo kale ka fakiray oo ah luuq yar baa u dhaxeeya isaga iyo Baghdad oo ay degan yihiin nimanka shiicada Ismaaciiliinta la yiraahdo xashaashiinta dabeetana wuxuu is yidhi armay nimankan rabshad kugu keenaan malaa waxa fiican intan inaad cagta mariso ka takhallustid shiicadii meesha joogtay ayuu weerarka ku qaaday shiicada meesha tani waa niman aad u dagaalyahanaa bay ahaan jireen dhul buuraley oo khatarna degan qalcadoodii ugu weynayd markuu dagaalka ku qaaday ayaa taa'ifada ninkii hogaaminayay ayaa soo baxay ruknudiin nin la odhan jiray baan filayaa wuxuu dalbaday inuu heshiis la galo Holaco intan dambe nin siyaasi uu noqday heshiiska waan ka aqbalayaa buu yidhi laakiin qaa'idkiisii miidaaniga ahaa ee ciidanka hogaaminayay ayaa diiday dabeetana dagaal bay ku qaadeen qalcaddii way furteen wixii ku jirayna waa laayeen ruknudiin oo shiicada haystaa wuxuu codsaday shiicada inta kale Ismaaciiliyiinta oo dhan heshiiskan qaadanaya ee heshiiska ha layga aqbalo saasaa baa la yidhi haa Holaco khita kaluu dego wuxuu yidhi khalaas waan aqbalay laakiin bishart shardigaana ku aqbalaya waxa weeyaan waliba taariikhyahanadu shardiga kan markay ka warramayaan qiso tiro badan bay sheegaan kow daa'ifada tani Ismaaciiliyada la yidhaahdaa dagaaladii iyaga iyo tataarka dhex maray waxay dileen Chagtai ninkii la odhan jiray iyagaa loo tiriyaa eena Genghis Khan ahaa ciidamadan Holaco uu wadana waxaa la socota Chagtaigaasi inan uu dhalay oo amiirada oo aabaheeda inay u aarto raadacaynaysa dabeetana waxay istiri iyaduna halkan aarkii wuu ka dhadhow yahay inaad aarkaa hesho ruknudiin waxaa la yidhi waxaanu kuu diraynaa Qaraqorom boqorka heshiiska la soo gal Qaraqorom baa loo diray Manko Khan markuu yimi Manko Khan wuu xanaaqay la kulmi maayo buu yidhi Holacona wuxuu ku yidhi fardaha tataarka inaad dariiqa intaan leeg soo mariso soo daaliso iyagoo waxaasoo kala wado aad ii keento may ahayn buu leeyahay fardaha tataarku inay sidaa u daalaan iyagoo ninkan oo kala wada maaha buu yidhi waxa dib baa loo soo celiyey ruknudiinkii meel dhexe markay marayeen ay madaxa ka gooyeen si aan la garanayn ilaa hadda taariikhdu ma sheegto sababtii lagu dilay laakiin meel dhexe markii la marinayay ayuunbaa laga takhallusay daa'ifadii Ismaaciiliyada oo boqorkoodiina la dilay ayuu Holaco wuxuu ku yidhi heshiiskaan idinla galay laakiin hal midaan idinka rabaa waa istira badiseen oo wasnigaa leediin wasni aan ahayn miisaankiina iyo xajmigiina awood aan lahayn baa sheeganaysaan heshiiskaan idinla galaya laakiin waxaan wax idinku siinayaa awooddiina markaa soo bandhigtaan inta ay leegtahay saa daraaddeed waan idin tirinayaa tiraan wax idinku siinaya shiica Ismaaciiliya tiradeedu intay leegtahay baan wax ku siinaya waxay yidhaahdeen nimankii shiicada Ismaaciiliyada maanta wax laynoo ogoliyay xooggeenna aan muujinno maxaan samaynaa meel kastoo Ismaaciil jira ha laga war doono shaam kuwii deganaa qaar Baghdad meel kastoo ay joogeen waa la isaga yimi waayo waxaa la isleeyahay maanta xoog baa helaysaa markay isu wada yimaadeen ayuu gunta ka gooyay xabadba kama sii dayn Holaco shiica Ismaaciiliya waqtigaasaa taariikhda ugu dambaysay war dambe ay leeyihiin Aga Khan-kan iyo midharhkan meelaha marmara ayaa ka soo hadhay laakiin Holaco intuu ururiyo meel isugu wada geeyey markuu isla helayna madaxa ka gooyo dhammaantood diray shiicadii markuu meel ku hubsaday oo waxay yidhahdaan madaxdoodii qaar ka mid ah ama raggoodii waaweynaa inantii Chagtai uu dhalay Salqaan baa la odhan jiray Salqaan Khatuun ayuu u dhiibo u qaar yidhi kuwaana aabbaha u lah dabeetana iyana aabbaheed bay koo xullaysay 655 ayaa shiica Ismaaciiliya la baabi'iyey waxaa bilaabmay dagaalkii Baghdad markuu intana ka takhallusay hadda wuxuu joogaa Baghdad siduu shaqo uga qaban lahaa shirweynaa loo fadhiistay magaalada Hamadan la yidhaahdo ee Faris Persia ku taalla ayaa shirka lagu qabtay 450 kilomitir ayay Baghdad u jirtaa shirkaa waxaa lagu go'aamiyey kow ciidanka in 3 qaybood laga dhigo
qayb uu hoggaamiyo holaako qalbiga ciidankana uu noqdo imdaadaadna la siiyo siiba imdaadaadkii ama taakulayntii ka timi alqabiila adahabiya ama golden hortka qolada la yidhaahdo oo ubato ibnu georgi uu hoggaaminayo oo gobolku xukumayaya wixii taakulayna ka timina adigu kaxaysaa la yidhi weliba ay kula socdaan armenia iyo georgia wixii ciidane ka yimin ay kula socdaan intaasi waxaa la yidhi waa wadnaha dagaalka wadnihiisa inta ka qayb galaysa holaaka hoggaaminaya ciidanka labaad waxaa la yidhi koonfur bari baqdaad ha ka soo galaan ciidanka koonfur bari ka soo gelaya waxaa la yidhi katabqa ayaa hoggaaminaya isaga waxaa la amray inuu socdo meeshu waa dhul buuraleeya ciidanka intaan leegi ma wada mari karaan in la kala qaybiyaa baa la rabaa dusha ka wareeg baa la yidhi iyo dhulka suhuusha ah baqdaad adigu xagga koonfureed ka soo gal baa la amray ciidanka saddexaad waa ciidankii ka soo socday anadol turkiya xaggeeda sare waa ciidanku bijo ninkii la yidhahda uu hoggaaminayay waxaa la amray 1000 kilomitir intuu soo jaro inay isku wakhti soo galaan magaalada baqdaada taariikhyahanadu waxyaabaha cajiibka ay sheegaan waxaa ka mid ah 1000 kilomitir ciidan socda oo dhul socda oo diyaarada iyo wax ilaalinaya aanay jirin ama waddada uu hagaajinaya aanay jirin oo aan la kulmin wax kamiina wax dhul jiifa wax meel u galay waxba aan la kulmin oo 1000 kilomitir ba dawladda yaroo islaamiga ay degan yihiin oo haddana socodka dheeraynayo isku dayaya nimanka hamadaan ka dhaqaaqay inuu kula tago isku wakhti magaalada baqdaad uu kula tago isla markaasi ma jiro muwaasalaadkan hadda cusubada telefoon iyo taar iyo wax lagu wada hadlayo farda wata la rabo fardihiisaasi inay mar la galaan baqdaad ciidamada dhanka ka soo socda laakiin dhulka uu marayo waa salaajaqadii aan sheegayay muusal buu soo maray oo odaygii badrudiin lu'lu ciidanka soo diray oo haystay waa oday 80 jira taariikhyahanada qaarkood baa waxay dhahaa 100 jir aakhiru u sii jeedaa haddana gaaladu daba socdaa uu gargaaraya baqdaad markii la qabsaday 3 bilood kadib baan filayaa buu dhintay kani badrudiin kani maca daalika aakhirada cidima xasuusinay tataarka la arkaa xagga tataarku kaga jira magaalada baqdaad waa magaalo leh qalcaad xusuun tiro badan oo adag oo ku wareegsan waa magaalo 5 qarni dawladdan ay ka talinaysay waa magaalo uu joogo khaliifkii 700aad baa jooga oo boqorkii 700aad ee muslima ayaa ka talinaya laakiin dhufaysyada iyo hubka iyo xusuunta hadday rag waayaan haba ma taraan almustacsim billaah waa nin noloshiisa marka la eega bay leeyihiin nin fiicana qur-aanka akhrista ay leeyihiin caqiidatu salaf buu haystay cibaadaadka ku fiican faqarada wax siiya laakiin waxaasi waa naftiisa ummadda wixii anfici lahaa muu hayo ummadda waxaa anfacaa qaa'id soo jeeda dunida waxa ka socda garanaya balaayooyinka ku xiiran ka fekeraya taktiik fahamsan iyo qaab uu diyaar garo kaasa anfacaya dadka ولذلك ابن كثير مركو نكن كورمي وحليه كان حسن الصورة ننقرح بدنبو هابويري جيد الصريرة تاريخ دي سيالابتي شايادو في عنتهي صحيح العقيدة عقيدة في عن مقتديا بأبيه المستنصر بالله في العدل أبيه كضيري حق عدالته صدق بدن علماء شرفه iyo dadka cubaada ah madhabu salaf sunniya ku sugan laakiin madhabu salaf in wax la iska celiyaabaa ku jirtay xaggan un cibaadada iyo intan buu kaga sugnaaye baabkii loo baahnaa kagama sugnay غافل عن السياسة buu haaba yidhaahdaa wadciga waxa ka socdana si fiican uma garanaynin ragga sida loo kala doortana si fiican uma garanaynin raga baa joogay oo ka mid yahay adeerkii alkhafaaji ninkii la odhan jiray oo ka mid yahay rag badan oo ragaa jiray laakiin raggii ragga ahaa waa la durkiyey mujaahidudiin aybak baa ka mid ah mujaahidudiin aybak iyo mu'ayidudiin alcalqami col bay ahaayeen kan shiiciga baa kor loo soo qaaday kan kale waa la durkiyey
idan muu lahayn aragti siyaasi oo dheer muu lahayn kafaa'o qiyaadiya sida uu doctor raaqib isarjaani leeyahy muu lahayn himmo korraysa muu lahayn geesinimadii qaraarada lagu qaadan lahaa wakhtiga kana adag muu lahayn buu leeyahay karismihii uu u baahnaa inuu ummadda uruuriyo oo dadku ay ag joogaan muu lahayn buu leeyahay ragga sida loo miidho ama loo doorto ama loo xusho 16 sannadood waa in laga diyaar garoobo way ahayd intuu boqorka ahaa waa 16 sannadood oo sanadkiisii 17aad in laga diyaar garoobo way ahayd mase dhicin ee waa ka askartiisii beeralayda ka dhigay iyo sanaacinta maxay ku gabagabowday markaa waa madax ummaddana aan diyaar garaynaynin kursigana aan ka kacaynin waa kuwa maanta joogow qofku waxay ahayd ama inuu shaqada u qumo ama inuu banneeyo cid kaloo u qumi karta tago anaana fadhinaya waxna tari maayo qaacidadaa bay joogtay ragguu doortay waa kuwan khiyaamaynaya ee ninka kan kolba u tegaya magaalada baqdaad 3 milyan oo qof baa jooga culamada dunida ugu tiro badan baynu odhan karnaabaa degan waa dhul raaxo culum nadariyo tiro badan baa taalla waxay maqleen wixii afghanistan ka dhacay wixii madaabix ka dhacday wixii dawla alkhawarzamiya ka dhacay wixii muslim la laayay inay wax ka taraan daayada iyagaaba kala qayb galay mararka qaarkood sida la sheegay dawla alkhawarzamiya sidii looga takhalusi lahaa maadaama iyaba ay ka tataarka ku caawiyeen in laga takhaluso iyana kuwii ag joogay baa waxay ku caawiyeen in iyaga laga takhaluso muxaram 12 markay ahayd 656 hijriyada waa sanadkii 656 hijriyada bishii koowaad ee muxarama 12keedii markay maraysay ayuunbaa waxaa la arkay dhanka bari ee magaalada baqdaad isagoo ciidamadii hoolaku ay taagan yihiin oo uu bilaabay inuu dhigto madaafiicdiisii wixii gaami lahaa dhanka koonfur barina koonfur yacni bariga oo koonfurta raacsiisanna katabqaa baa ka soo galay markaasuu boqorku hambaabiray dabeetana ijtimaac taari ah kulan degdega ayuu qabtay kulankii degdega ah baa laga wada hadlay kulanka qola waxay leedahay aan la heshiin oo isdhiibno oo nabadgelyo arrinta ku dhammayno waa fariiq uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii waddanku mu'ayyidiin alcalqami laba nin oo kale nin la yidhahdo mujaahidudiin aybak iyo nin la yidhahdo sulaymaan shaahna waxay leeyihin war waxaas wax lagu hadla maaha aan jihaatanna wax iska celinno oo cidina nabad waxaynugu siin maysee aan difaactanoo dagaalanno muddo ra'yigii markii la rogrogay boqorku maadaama nin iska niyad fiican ahaa kuwan jihaadka sheegay buu iska raacay wuxuu yidhi waa yaan wax iska celinno dabeetana mujaahidudiin aybak iyo ninkii la socday sulaymaan shaah baa la yidhi ciidan diyaariya nimankii markay ciidankii diyaar garoobeen oo xaggan xusuunta ay ka samaysan tahay iyo qoladan in laga hortago loo diyaar garoobayo ayaaba waryimi la leeyay alambaar baa la marayaa ciidankii yurub ka soo galaa isna halka maraya meeshan ambaar imka la yidhahdo ciraaq ayuu maraya waa meel aad u dhow aan waxba u jirin waana dhul bannaan oo dabeetana waxaa la yidhi waxoogaagii ciidankee la ururiyey waar bal qoladaa waajaha mujaahidudiin wuu soo baxay isagoo ciidankiisii wata wuxuu ka hortegay bijo iyo ciidamadii dhankan yurub ka soo galay ee 1,000 kilomitir soo socday ayuu ka hortegay laakiin nasiib darro trainingku haddaanu fiicnayn oo si fiican taktiigii military waa laga tiro badiyey waa uu tallaabay webigii bay iyana ka soo tallaabeen meel dhoobo oo mustanqacaad oo biyo fadhiisinoo xagga shishe looga maray sidii wax jabay baa la ysaga dhigay ciidankiisii wuu soo eriyado kooxdii bay ka daba yimaadeen injineero ciidanka la socday bijo wato ayuu diray xagga dambey ka wareegeen biyo xidheennadii ku xidhnaa meesha waa la faruuray oo biyihii waa la soo daayey si waddankan oo dhan dhooba ay uga dhigaan
jusuurtii meelihii laga tallaabayeyna waa la jabiyey markii ciidankii maxaa la yidhaahdaa taakulayntii oo dhan laga jaray xagga dambe webigii la faruuray ayuu ciidamadiisii ku soo jeestay dhoobo iyo meel aan farasba ordin la limanayo ayay joogaan gamtaa loo joogsaday mujaahidiin aybak iyo in yaroo la socotay mooyaane ciidankana waa laga takhallusay dib ay u soo noqdeen iyagoo firdhaday baqdaad soo galeen iyadoo waxoogaagii ciidankee la ururiyeyna biijo uu badda ku cabbay ka soo takhallusay waa ciidan goobta lagu dagaalamayo dhulkiisii ay tahay oo haddana looga aqoon bato lagu khiyaameeyey waa dhulkiisii waa ciraaq gudaheeda lagu dagaalamaya laakiin waa looga taktiiki badiyey dabeetana iyagii baa meeshii ku jabay baqdaad buu soo galay waa 19 muxarram baa dagaalkani dhacaya biijo ayaa hore u soo socday isna dhanka waqooyiga ayuu magaaladii baqdaad ka soo fadhiistay magaalada baqdaad marka hadda waxa ku xeeran saddexdii ciidan iyo wixii ay wateen holeeko oo bari jooga katabqa oo koonfur bari jooga iyo waqooyiga oo uu joogo ninka la yidhaahdo biijo jalse labaad baa loo fadhiistay ibn alcalqami markii mujaahidiin aybak iyo kooxdiisina ay soo jabtay boqorkiibuu ku noqday wuxuu leeyahy kama maaranno diblomaasiyad inaynu haatan bilowno isticmaalno طاولة المفاوضات miiska wada hadalka aan tagno war kale ma yaallo laakiin miiska wada hadalka yaa wada hadla taariikhda bini aadamka mufaawadaadku yay dhex maraan laba ninoo xooggan hadday mufaawadaad dhex maraan wax caqliga gala ka soo baxa laakiin miskiin iyo nin muqiyo xooggani haddii mufaawadaad dhex maro mufaawadaadku dee waa un aqbal ilaa wax ka dambeeya haddaad aqbali weydo waa ku burburinaya weeyaane mufaawadaad weligaa haddaad maqasho mufaawadaad baa dhacaya falastiin iyo israa'iil mufaawadaad kastoo dhex mara maxaa ka soo baxa heshiis ay tanaasulaad sameeyeen falastiintu hadhow baa wixii soo baxay israa'iil fulin weydaa markaasaa waxa la yidhaha mufaawadaadka ha la cusboonaysiiyo haye dib baa loo cusboonaysiiyey maxaa ka soo baxa shuruudan bay soo xidhaan kuwan baa soo tanaasula waa la soo saxeexaa way fulin weydaa israa'iil hadhow baa la yidhaha mufaawadaad saddexaad mufaawadaad unbaa socda ku kastoo bilaabmaana waa tanaasulaatun haatatan magaaladu waa xisaar bay ku jirtaa mufaawadaad baana bilaabmay mufaawadaadkii iyuu dirtay boqorku u fiirso boqorkan halka ay joogto siday taarikhyahanadu leeyihin labadii nin aynu lahayn hooleekay hoosta kaga xidhnaayeen ayuu wuxuu u diray inay noqdaan mufaawadiinta dhankiisa ka socda waa kuma waa mu'ayadidiin alcalqami iyo batriirikii mekako la yidhaahdo kiniisadii kristanka ee joogtay baqdaad batriirigeedii mekako iyo mu'ayadidiin alcalqami labadaasaa la diray inay mufaawadaadka hoolaaka la soo galaan hoolaaka labadoodii markay u yimaadeen wuxuu yidhi dhegaysta adiga waxaan kugu ballan qaadaya wax masiixiya inaan la taaban kiniisadahaga iyo waxaaguna inay kuu badbaadaan wixii lagu siin karana lagu siiyo adna waxaan kugu ballan qaadayaa baqdaad maalintaan gacanta ku dhigo majliska xukumaya ayaan madax kaaga dhigaya baqdaad iminka ra-iisul wasaaraad ka tahay marka kan adaa talin doonaba meesha qabsanaya maxaa tala ah markaa dawladda waxaa korkeeda saaran horta labadii nin ee dagaalamay iyo kooxdoodii in la keeno shayga koowaad mujaahidiin aybak iyo sulaymaan labadaasi de waa mutaطarifiin iyagu ahlu taطarufkana dunida lagama ogola labadaasi waa inay soo xero galaan ثانيا natiijadii mufaawadaadku waxay noqotay markaa dagaalka oo la joojiyo nabadgelyo dhacda hoolaako oo ogol inantiisa inuu bixiyo oo boqorka inankiisu guursado boqorka almustacsim billaahi kursigaan adigana kuu daynayaa buu yidhi reer baqdaad oo ammaansi waxani waa wixii uu hoos ula galay wixii aan idiin sheegayo hore waa wixii uu hoos ula galay labada nin laakiin mufaawidku muxuu u geynayaa boqortooyadii boqortooyadii waxaa loo keenay ninkii heshiis baanu la gallay heshiisku muxuu dhigayaa dagaalka in la joojiyo nabad la qaato
hoolaako inantiisa in inankaaga loo guuriyo si nabadda loo adkeeyo reerku u xidhido kursiga boqortooyada in adiga lagu daayo aad boqorkaaga ahaato reer baqdaadna ammaan in la siiyo intaasi waa intay iyagu helayaan shuruudda ku xidhani maxay tahay laakiin bishuruud waa inaad shuruudatan fulisaan intaasaan anigu aqbalay buu yidhi hoolaako laakiin shuruudan baa fulinaysaan waa maxay shuruudu wax allaaliya waxa qalcad ee baqdaad ku yaalla waa inaad dumisaan shardiga koowaad shardiga labaad waxa weeyaan wax allaaliya wax khanaadiq godadka dhufaysyada aa leediin oo dhan waa in la dumiyaa shardiga labaad waxa weeyaan wixii huba in la soo dhiibo saddexaad wixii hub ah in la dhiibo shardiga afraad ee ugu dambeeyana waxa weeyaan inaa aqbashaan dawladda guud ee tataarka ee qaraaqaram caasimadeedu tahay inaa hoos timaadaan raciyada inaa ku biirtaan intaas haddaa annagu wax kale uma soconno hola kaale annagu waxaan u soconnaa inaanu cadaaladda sugno xorriyadda iyo ammaanka inaanu ilaalinno qaabkaasaan u soconnaa taariikhdu waxaad mooddaa un beyj horoo jiray in dib loo qoro ma aha taarikhda bini aadamku waxa taarikhdan bini aadamku in aadamun weeyaan waxaan dunida jooga waa aadam iyo intuu dhalay god aan hore loogu soo jabini ma jiro ilaa iyo maanta godadka jooga haddaad taariikhda dib u akhrido waxaan tan u akhrinayaaba ma aha inaan idin raaxeeyo oo muslim baaba ayaa idinka raaxeeyo laakiin waa inaan idin tusiyo taariikhdu beyjaj la rogo inteeda badan inay tahy ciraaq soo maydan maqlaynin waxaa lagu qaaday hubka in laga mamnuuco hubkeeda inay gubto united nationka in loo soo diro waxa hubleeda inay gubto cunaqabata in lagu sameeyo in kan lagu sameeyo muqaabilu dalik waa maxay nabadgelyaa laydin siinaya kadibna in xilfi wadaag uu maraykan soo samaysto dabeetana biduuni qaanuun in lagu qabsado kullu dalik taariikhda bini aadamku baqdaad suquudkeedii shalay ahaa iyo kii dhowr boqoloo sannadood 800 sano ku dhow ama 900 sano ka hor dhacay waa isku weji eegin 800 sannadood beejku dib unbuu isu soo rogay boqorku si aanu mufaawadaadkaasi talakuba uga samayninna garaacistaa lagu bilaaba in magaalada garaacistu ay ku socoto bishii safar la odhan jiray bilowgeedii baa waxaa la bilaabay 4 maalmood in garaacis xooga lagu sameeyo magaalada ibnu kathiir wuxuu sheegayaa daartii boqortooyada square laga qabtay buu yidhi dabeetana gamuunyahanadii baa gamuunka ku ganay gamuunku waa leebka waa dee waxyaabihii la isku garaaci jiray madaaficda ugu waaweyn baa lagu ganay taarikhyahanadu waxay sheegaan boqorku wakhtigaasi jaariyadihiisii mid ka mid a cayaaraysay inan carafa la yidhaahda hortiisa ka cayaaraysay oo ahaa jaariyaadkii mulkul yamiinka lagu haystee joogay ayaa cayaaraysay taarikhyahanadu waxay sheegaan carafo boodboodaysa ayaa gamuun ku dhaca markaasuu boqorkii naxay hortiisa markay inantiina ku dhacday ayuu boqorkii naxay bay yidhaahdeen waxay yidhaahdaan gamuunka lagu dhuftay waxay ugu soo qoreen bay yidhaaheen weedh ah idaa araada allaahu infaada qadaa'ihi wa qadarih adhaba min dawi lcuquuli cuquulahum baa ku qorrayd bay yidhaahdeen ilaahay hadduu doonayo arrinkiisa inuu fuliyo kuwa caqliga la unbaa caqliga laga qaadaa waxba kala garan waaya dabeetana wixii la rabaa fula gamuun ay ku qoran tahay inantaasi ku dhimatay bay yidhaahdeen boqorku markaasuu kabashkabashta bilaabo wuxuu yidhi daahiyada guriga ha lagu badiyo waxyaabaha kana aanu gamuunku soo maraynin daaqadaha in la adkeeyo ayaa la bilaaba arrintii meel adag bay maraysaa alcalqami mu'ayadiin alcalqami wuxuu yidhi mufaawadaadka aan ku noqdo mar labaad ma bilaabaa boqorku wuxuu yidhi haya adigu tag mufaawadaadka adigu iga aqbal wuxuu yimi holaako mar kale mufaawadaad baan rabnaa inaan kula galno masaas ahaa wuxuu yidhi keligaa kuma qaabili karo ee waxaan rabaa markaynu wada hadlayno inaad wadato magaalada culammadeedii rijaalul acmaalkeedii dadkeedii wajahadee la yaqaanay magaalada dadkii caqliga u ahaa waa inay kula socdaan haddaad doonayso inaan heshiis kula galo weliba boqorku waa inuu ku jiraa
wuu soo noqday wuxuu yidhi ninkii holaako wuxuu aqbalay inaynu wada hadal samayno laakiin waxaa laygu xidhay inaynu xaashiyadeenoo dhan intaynu kaxaysanno inaynu u tagno waa yahay baa la yidhi waxaa la soo kaxeeyey 700 oo ka mid ah magaalada baqdaad dadkii magaca iyo maamuuska ku lahaaya ee culamo leh ee tujaar leh ee waxgarad leh 700 oo nin oo ka mid ah waxaa la soo kaxeeyey qoyskii boqortooyada 17 ka mid ah dabeetana wuxuu yidhi holaako markii wixiiba soo baxeen waan idin kala dambaysiinaya kow boqorka iyo 17ka qoyskiisa ahi ama 17 idinka mid ah iyo boqorkoo quri ha yimaadaan inta kale xagga dambe ha ku sugto waa yahay baa la yidhi boqorkii iyo 17 baa u tegey 7 boqol kale wuxuu yidhi horta iyaga madaxa ka jara 7 boqol kale madaxa laga jaray boqorka waxba looma sheegin ciidankii raggii uu halkan kaga yimi iyaga wuxuu yidhi iga qariya 17kii uu yimina wuxuu yidhi khaliifada boqorka waxaa laga rabaa inaad hadda amar bixiso ah reer baqdaad inay hub ka dhigaan boqorku haatan war uma yaallo waa inuu amarka bixiyaa ka labaad wuxuu yidhi boqorkana ha la xidho boqorkiina waa la xidhxidha maxaa loo xidhxidhanayaa adigu waa inaad sheegtaa baa la yidhi qasnadihii dawladda iyo meelihii waxyaaleen oo dhan si loo heli karo boqorkoo meesha taagan ayuu yidhi labadiisa inan soo qabto horta 3 inana uu dhalay axmed abulcabaas iyo cabdiraxmaan abulfadal ayuu yidhi ku hor gowraca isagoo taagan boqorkoo meesha taagan ayaa labadiisii wiila waaweynaa lagu hor gowracay kii saddexaad wiil saddexaad oo dhalo mubaarak abulmunaaqib la odhan jiray isaga wuxuu yidhi xidhxidha maxbuus ka dhiga 3 hablood ay boqorka walaalayiinna ku dara buu yidhi halkaa markay joogto waxaa la yidhi ha loo yeedho wixii baqdaad rag waaweyn ku hadhay ee culammadii ahlu sunna ah waa loo yeedhay xabaalaha la dulgooyaa la yidho dhammaantood ha la laayo iyaga iyo dumarkoodaba waa la laayay ragga la laynaya maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sheekhii magaalada uu dhalay ibn aljawsi inankiisiiya الشيخ محي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي وشيخ الدار الخلافة ولا قورعي شيخ يسدح ويلا ودالي ودا قورعي رجع ماشي اللي جو قورعي وحكم إذا لبدين إن الدجالية هنكا مجاهد الدين أيبك يا سليمان شاه إيجانا وحليده هلا قورعه إيانا ولا قورعي وحلا قورعي دقي سو تربية خلافة صدر الدين علي بن النيار نين لا يلاحظه dabeetana waxaa la yidhaha lagu xigsiiyo a'immada masaajidda khutabada xamalada qur-aanka waxaasoo dhan ha la laayo intaaba waxaa la laayay iyadoo uu boqorku xayi yahay oo weli nool yahay dabeetana ciidankiisii baa meesha lagu fasaxay waxaa la yidhi baqdaad ha la laayo 40 maalmood baa baqdaad wixii ku noolaay oo dhan la gumaadayay waxay yidhahdaan askari baa ku soo baxay 40 carruur oo hooyooyinkood la dilay isna 40kii buu gowracay waxaa la yidhahaa boqorka isaga oo ciidankaa la yidhi kubad ka dhigta harraato ku dhintay baa la yidhi sidii harraati loogu waday taarikhyahanada qaar baa waxay leeyihiin isaga cidhibtaa lagu dilay sidii harraati loogu waday ayuu boqorku geeriyooday waxaa ka soo baxay meesha tan maktabaddii ugu weynayd ee dunida ku taallay maktabadda ugu weynayd dunida ku taalla baqdaad bay ku taallay waa maktabad haaruun urashiid oo asaaskeeda bilaabay 100 iyo dheeraadkii 170 ilaa 193 hijriyadu isagu maamulayay dabeetana waxaa yaalay mujalladaadka dunida ugu tirada badan leh maxaad iyada ka sheegaysaa Trablus tii Lebnaan ee ay gubeen waxaa yaalay baa la yidhaha 3 milyan oo mujallad 3 milyan oo volume maxaad u malaynaysaa tii baqdaad iyadoo baqdaad maktabadda quri waxay lahayd dad nusaakhiin oo madbacadima jirina wax qora dad kutubta dadka u dhiiba dad mutarjimiin oo afafka kale ka tarjuma researchers degan meesha غرف wax lagu akhristo meelo wax la isugu dhigo xalaqaad ama meelo nadawaad cilmiya lagu qabto lagu niqaasho meelo ardadu ay seexdaan waa akbar waa maktabadii dunida u weynayd
oo uu yaallo aqoonta dunida dhammaanteed af kasta ku qoran ha noqdo afkii yuunaanta Greega kii Siryaaniga ahaa kii Hindiga ahaa kii Sakritiga ahaa Farisiga Laatiiniga kullu luqaat way yaaleen may odhanin maktabadda rara oo qaraa qorum geeya lama odhane waxa la yidhi rara oo webiga Dajla ku gura webiga Dajla ayaa aqoontii reer nebi aadam uu kala dhexlayay maaha aqoontii muslimiinta oo qura waa maca Greegii hore ma wixii bini aadam qoray muslimka waqtigan waxay lahaan jireen rag aqoon-yahanoo dunida loo diro oo shaqadoodu ay tahay meel kitaab dunida yaalluun inay arkaan soo qoraan kitaab kasta cidii haysta waa laga iibsanayay waana la keenayay kitaab kasta waa la tarjumayay ayu cilmi ha ku saabsanaado maktabaddii intaa leekayd waxaa la raaciyay webiga Dajla waxay yidhaahdaan mudduu webigu khad dareerayay madoobaaday khadkii bugaagtan lagu guray fardaha lagaga tallaabiyey bay yidhaahdaan webiga sidii maktabadda tan loogu guray 40 maalmood baa magaalada dadkii la xaaqayay waxay taariikhyahanadu sheegaan 1 milyan oo qof dad ka badan baa la dilay taariikhyadana qaar baa 2 milyan yidhaahda waxay yidhahdaan guryahu masiibku waa majaroorka halkan biyuhu ay ka dareeraan dadku markay cararaan ay guryaha saqaf ka fuulaan baa laga daba tegaysaa loo laynayo guryaha magaaladu dhiig bini aadam bay daroorayeen baa la yidhaahdaa dumarkii iyo carruurtii xagga sare koray iyo wixii sidii loo gowracayay guryihii Baghdad ku yaalay bay yidhaahaan sida roobka dhiig bay da'ayeen waxaa la tilmaamaa markii uu baqay xanuuna dilaaceen 40 maalmood kadib 40 maalmood wuxuu amray wax dhaqaaqa inaan la sii daynin aduu magaalo 3 milyan oo qof degantay oo intaasoo kunoo ciidan soo galeen oo qaradkuna yahay wax nool inaan lagaga tegin qiyaasun waxa ka soo baxaya oo maalin iyo 2 iyo 3 aan inay 40 cashaa 40 markii lagu waday ayuu ciidamadiisii wuxuu uga baqay xanuunadu inay laayaan markaasuu yidhi ka soo baxa ibnu kathiir wuxuu leeyahay dadkii taacuniya balaaya ka dilaacay waman najaa min aطacni lam yanju min aطaacun buu leeyahay ciddii birta ka nabad gashay daacuunkii baanay ka nabadgelin buu leeyahay Baghdad intii hadhayna kaloora laayay daacuun baa laayay gooraan baa la eg fadhiyaan u malaynayaa marka waxaan ku gabagabaynayaa uun taariikhda maantu waxaan joogaa weji ah Baghdad oo dunida taariikhdeedii ka baxday waxay cilmi lahayd waxay culamo lahayd waxay dad lahayd waxay boqortooyo lahayd dhammaanteed la laayay xoogna aan lagu dilin tala xumo muslim ku dhimatay muslim isqaybqaybiyey oo iyagu col ah heshiisna iyo xilfi wadaag la galaya cidda kale midba uu ka kale kula duulayo taariikhda dhaxalkeedu waa ka waqti kasto ay saasi dhacdana ma aha inaan dadkan ku jirin dad cubaadi ama qaar ilaahay bariya ama qaar salaad badan ama qaar caqiido wanaagsan xataa boqorka la leeyahay ba caqiido fiicna laakiin caqiido fiicni quri waxba ma tarayso haddaanay ummaddu wixii la faray aanay samaynin dhammaanteed haddaanay diyaargarowgii la faray aanay samaynin ummad kasta oo muslima oo iyadu isku jeesata oo istunta waxaa abaalmarkeedu yahay caasimadaheeda in gaala ka taliso waana inta maanta dunida ka taagan والله أعلم بالله التوفيق